kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin daawadayaal meel kasta goob kasta oo aad naga daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamij aan ku eegayno sanad guuradii 8aad ee maalinta xuska qowmiyadaha ee shucuubta ee dalka Itoobiya oo sanadkan ay martigelisay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya daawadayaal barnaamijkan waxaan ku eegaynaa habka ay u dhacday munaasabadan oo ahayd mid si wanaagsan loo soo agaasimay isla markaana ka dhacday garoonka kubadda cagta stadiumka ee ku yaala magaalada Jigjiga fagaarahan stadiumka oo si wanaagsan loo soo camray isla markaana inta hersara jawiga abaabulka gudaha stadiumka ahaydna munaasabadii ugu ballaaneed ee ka dhacda caasimada dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga ayaa xuskan sanad guuradii 8aad ee maalinta qowmiyadaha shucuubta ee dalka Itoobiya ee 29 Hidhaar ayaa waxa munaasabadan ka soo qayb galay mas'uuliyiin sarsare oo heer federaal ah madaxweynayaasha deegaanada ka kooban yahay dalkan Itoobiya iyo labada ismaamul magaalo iyo afhayeenadooda waxa kale oo ka qayb galay ergooyin ka kala socday deegaanada dalka mas'uuliyiinta heer federaal ee ka soo qayb galay munaasabadan waxa kamid ahaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ee dalka Itoobiya Ato Haile Mariam Desalegn waxa kale oo kamid ahaa afhayeenka golaha federationka Ato Kasa Tagla Burhanu waxa kale oo madaxweynayaasha ka qayb galay xuska 29 Hidhaar ee maalinta qowmiyadaha ee shucuubta ee dalka Itoobiya ayaa waxa kamid ahaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamed Cumar oo dawladda uu madaxweynaha u ka yahay martiloha isla markaana ay qabatay xuskan munaasabada 29 Hidhaar hadaba munaasabadan waxa kale oo ka soo qayb gal dhamaan qaybaha dhaqanka ee deegaanada dalka Itoobiya iyo labada ismaamul magaalo waxa kale oo door weyn ka qaatay ururada bulshada dhalinyarada iyo ardayda ku barata magaalada madaxdan deegaanka xarunteeda ee magaalada Jigjiga kuwaas oo fagaarahan ku soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo sida farshaxanada iyo waliba qalab rogodka waxa kale oo munaasabadan 29 Hidhaar ee maalinta qowmiyadaha shucuubta ee dalka Itoobiya ayaa waxa lagu casuumay in ka badan 140 ergo oo ka kala yimid dalal kala duwan oo caalamka ah waxaana dawladaha lagu casuumay kamid ahaa dawladda Soomaaliya waxaana wafdi ka yimid magaalada madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho waxa kamid ahaa wasiirka warfaafinta Mudane Cabdullaahi Ciilmooge dalka Djibouti mas'uuliyiinta ka yimid waxa horkacayay madaxweynaha dalka Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle dawladda Kenya waxa ka yimid wafdi uu hogaaminayo afhayeenka baarlamaanka ee dalka Kenya dalalka dariska waxa iyaguna kamid ahaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana wafdiga hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo waxaana kale wafdiga kamid ahaa ka qayb galay xuska madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Farole wafuudda kale ee lagu casuumay xafladan waxa kamid ah madaxweynaha Jubbaland Mudane Ahmed Islaan Ahmed Madoobe hadaba daawadayaal bilowgii furitaanka munaasabada 29 Hidhaar oo ah markii 8aad ee la xuso martigelisana dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaana munaasabad sanadle ah ayaa ciidamada Bambeyda waxay socod iyo muusig ay ku soo mareen gudaha fagaaraha stadiumka ee magaalada Jigjiga halkaas oo ka dhacaysay xuska 8aad ee maalinta qowmiyadaha waxaana markii dambe ay salaan sharaf ay siiyeen ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ee dalka Itoobiya Ato Haile Mariam Desalegn oo helinayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamed Cumar iyo waliba mas'uuliyiin kale waxaana iyo garaacay heesta astaanta oo ah xuska qowmiyadaha ee shucuubta ee dalka Itoobiya ay socod iyo garaacay muusig ay ku soo mareen fagaaraha stadiumka ayaa diyuurad helicopter ah isla markaana waday nuqul fara badan oo warqado ah kuwaas ay ku qornaayeen halku dhig ka turjumaya dastuurka iyo waliba habka federalismka waxa ay ku soo daadiyeen gudaha stadiumka nuquladaas iyo warqadahaas oo aad u far badna isla markaana ay ka qayb galayaasha qaybaha bulshada dhalinyarada iyo ardayduba oo u baratameen sidoo mid walba uu nuquladaas wax u heli lahaa taasoo diyuuradan helicoptertu ay mar labaad iyo mar saddexaad ay ku soo noqotay stadiumka magaalada Jigjiga oo ka dhacay xuskan taasoo ku daadinaysay nuqulada warqadahan ay ku qoran yihiin fariimaha xuska dastuurka iyo waliba habka federalismka hadaba daawadayaal munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin aad u far badan dalalka dibadda iyo dawladaha dariska ahayd markii ugu horeysay yimaadaan magaalada Jigjiga kana qayb galaan munaasabadan hadaba daawadayaal munaasabadan waxa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ku furay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka dalka Itoobiya Ato Haile Mariam Desalegn የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች የተከበራችሁ
የፌደራልና የክልል መንግስታት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ክቡር የጅቡቲ መንግስት ፕሬዝዳንት ክቡራን የሩዋንዳና የኬንያ ፓርላማ አፈጉባኤዎች የተከበራችሁ የየክልሉ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተወካዮች የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ክብራትና ክብራን ከሁሉ በማስቀደም በዛሬው ዕለት በመናከብረው የብሔር ብሔረሰቦች 8ኛ ክብረ በዓል በመካከላችሁ ተገኝቼ ይህንን ንግግር ለማድረግ እድል በማግኘቴ የተሰማኝን ልባዊ ኩራትና ደስታ በራሴና በኢፌዴሪ መንግስት ስም ለመግለጽ እወዳለሁ። በተጨማሪም የበዓሉ አዘጋጅ ለሆነው የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ ህዝብና መንግስት እንዲሁም የታሪካዊቷ የጅጅጋ ከተማ ነዋሪዎች ላከናወናችሁ ደማቅና አኩሪ ዝግጅት እንኳን ደስ ያላችሁ እንድል ይፈቀድልኝ። waxaana u hambaliyay dhammaan bulshada reer Itoobiya dalka iyo waliba dibadda waxaana khudbadiisa uu ku muujiyay in dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib qabashada munaasabadan ay keentay nabadgelyada iyo horumarka iyo maamulka suuban ee ka hana qaaday deegaanka Soomaalida Itoobiya taasoo awood ahaan buuxisay deegaanka Soomaalida Itoobiya inuu martigeliyo deegaanada ka kooban yahay dalkan Itoobiya labada ismaamul magaalo iyo wafuudda ka kala timid dalka dibadda iyo waliba wadamada dariska ay keentay كقولانشها نبض يهرمرك يمامل كسوبن كهنا قاضي ديجان كصومالي إثيوبيا يحكومة أو مدحوينها وكيهاي مدحوين عبد محمد عمر يشعبك أو إسكاشنا يقول لي مد كرتدا يعود أوليهن قبشدا مناسبة حسكة سجال لبعتن كهدار وحنا رئيس الوزراء عرف وكل في خطبة دي سن إن ديجان ذو كوبين هاي دلكن إثيوبيا كجيران رقم فربضن أو كل الدون يولي بعد ديما كل الدون بلس قومي ذا قوة دقن دلكن إثيوبيا أيلي هل دستور أو قرى يعلن ده أو فدرال سداس لجنة لوجب بهاي إن لجا ضيضو ما دام يتاي تصال أد ونكسن بل سيكون ذوبين دستور قرى يعلن يولي بإن ديجان كصومالي إثيوبيا ومرتجلي ديجان وكوكوبين هاي دلكن إثيوبيا تاسو موجودة إن بلشة كودقان ديجان كصومالي إثيوبيا أي كجو أنتهاي وضن الله من لماذا يصلح جالك شعوبها يقوميها كل دون دلكن إثيوبيا ما أنتنا أيتهاي حسكن سيدات أو مرتجلسي ديجانك سوماليدا إثيوبيا أي تهي جول وين أو سويتي شعبك ديجانك سوماليدا إثيوبيا أو ضد لجاجة ديانكره رقمنا وناكسن حاجة مرتجلية سود وين يولي بقى نبض كون نولانشها ديجاننا ضلك waxaana ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ee dalka Itoobiya oo fariin hambaliyo ah 29 hiddaar ay martigelisay deegaanka Soomaalida Itoobiya oo u diray dalka iyo waliba dibadda isagoo ku booriyay in dhammaan la iskaashado la hormariyo arrimaha dhaqanka isla markaana la sii xoojiyo walaaltinimada midnimada shucuubta qowmiyadaha ee dalkan Itoobiya waxaana ra'iisul wasaaruhu sheegay in munaasabadan ay tahay munaasabadii ugu ballaarneed ee ka dhacda dalka Itoobiya ee 29 hiddaar taasoo aad u amaanay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hormuudka u ka yahay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar iyo qaybaha bulshada oo iskaashanaya waxa kala munaasabadan isna ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamed Cumar oo dawladda uu madaxweynaha ka yahay ay martigelisay xuskan 29 hiddaar ato Hayramaryan Dasalay የጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ አባዱላ ገመዳ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክቡር አቶ ካሳ ተክለ ብርሃን የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክቡር አቶ ተገነ ጌታነህ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የተከበራችሁ የክልሎች ርዕሰ መስተዳድሮች የተከበራችሁ ሚኒስትሮችና ከፍተኛ መንግስት ኃላፊዎች የተከበራችሁ አምባሳደሮች የተከበራችሁ ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችንና ፌደራል ፖሊስ የሰራዊት አባላት የጸጥታ አካላት የተከበራችሁ ሞላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተከበራችሁ በውጭ ሀገር የምትኖሩ የኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የተከበራችሁ የዚህ በዓል ባለቤት ለሆናችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተወካዮች የክልሉ ነዋሪ ህዝብ የተከበራችሁ የጎረቤት አገሮች የተከበራችሁ የጎረቤት አገሮች ተወካዮች የተከበራችሁ አምባሳደሮች
ክቡራትና ክቡራን ከሁሉም አስቀድሜ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልላዊ መንግስት አስተናጋጅነት በጅጅጋ ከተማ በደማቅ ሁኔታ ለሚከበረው ስምንተኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል waxaana salaan iyo hambalyo kadib madaxweynaha khudbadiisa uu kaga warbixiyay 20 sano ee ugu dambeeyay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee dhanka caqabadaha dhibaatooyinka dulsaarnimada iyo dawladnimada soo haystay ee xagga nabadda iyo horumarka in gaar ahaan sanadihii ugu dambeysay uu ku talaabsaday deegaanka Soomaalida ee Itoobiya horumar la taaban karo guul fiican laga gaaray dhanka nabadgelyada waxa kale oo madaxweynaha khudbadiisa uu kaga warbixiyay in natiijooyin fiican laga gaaray xagga horumarka sida waxbarashada biyaha caafimaadka xoolaha iyo waliba beeraha waxaan kale madaxweynaha uu sheegay inay bulshada ku dhaqan deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka go'an tahay inay si laban dadaalka ay ugu jiraan horumarinta dalka iyo guulaha dhanka horumarka waxaana madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo bulshada ku dhaqan deegaanka Soomaalida Itoobiya oo aqoonsan tahay aabaha horumarka iyo nabadgelyada oo ugu dambeyntii fariin iyo hambalyo u diray dhammaan shacabka iyo qowmiyadaha dalkan Itoobiya dal iyo dibad meel walba ay joogaan daawadayaal munaasabadan oo aan la soo koobi karin waxyaabaha lagu soo bandhigay ee dhaqamada farshaxanada iyo fantasiyaha ballaaran ee loo sameeyay ayaa waxa isna ka hadlay afhayeenka golaha federationka ee dalkan Itoobiya Atokasa Tagla Burhanu የኢትዮጵያ ሶማሌ ህዝብ እንደሌሎቹ ሁሉ በብሔራዊ እኩልነት ላይ ለተመሰረተ ጥልቅ ኢትዮጵያዊነት ተነግሮ የማያልቅ አስተዋጽኦ ሲያበረክት የኖረ ብሔራዊ ጀግና ህዝብ ነው waxana afayeenku warbixintiisa uu ku sheegay inay maanta ay tahay waa cusub oo bariyay dalka Itoobiya maadaama ay deegaanka Soomaalida Itoobiya ay martigelisay xuska maalinta qowmiyadaha ee shucuubta ee dalka Itoobiya isla markaana keentay dadaalka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo shacabkoodu ay ugu jiraan sidii ay wax ula qaybsan lahaayeen walaalahooda deegaanada ku kooban yahay dalkan Itoobiya waxana Kasa Tagla Burhanu afayeenka baarlamaanka uu sheegay in ay jiraan waxyaabo fara badan oo laga dayan karo deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaana waxa ugu dambeyntii ugu baaqay in la sii xoojiyo wada noolaanshaha iyo midnimada dal iyo dibadba daawadayaal lama soo koobi karo munaasabadan aad ka balaaran khudbadaha lagu soo bandhigay iyo fantasiyaha iyo ciyaaraha kala duwan waxa kale isna mikrofoonka lagu soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo lagu casuumay ka qaybgalka munaasabada 29 Hiddaar waxana madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha dalka Djibouti oo hambalyo u diray shacabka reer Itoobiya dal iyo dibadba waxana khudbadii iyo hadaladii waa ka soo jeeday kamid ah sida tan waxa sharaf weyn ah inaan maanta idin kala qayb galo xafladda sanawiga ah ee Itoobiya ee beherasabot maganaya meesha isugu yimaadeen galmudug waxa aan u nimidnayna waxay ahayd inaan ka qayb galno isbeddelka Itoobiya ku yimiday horumarka loo lagu dhaqaaqay isbeddelka weyn ee ka muuqda magaalada Jigjiga dawladda Soomaalida ee Itoobiya waxa anagu hadda reer Djibouti aan idin sidnaa kalgacal iyo walaalnimo waxa aan halkan kaga qayb galaynaa in aan muujino in aan idin garab taaganahay
intaa kadib ayaa daawadayaal qaybaha dhaqanka ee deegaanadu ka kooban yahay dalka Itoobiya ay socod ciyaar ah ku soo mareen gudaha stadiumka iyagoo deegaan walba uu soo bandhigay ciyaarta iyo dhaqanka gaarka oo ah taasoo si wanaagsan ay u soo jiidatay markaana jawiga ee garoonka stadiumka kubadda cagta wuxuu ahaa sida tan
ኮማንደር አየለ ማስስፖርት ክፍል ወደዚህ ቢመጡልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ኮማንደር አየለ ማስስፖርት ክፍል Tolanin.
تاي سبعة واسبعة قدامي عندي
وكا سفي عن haddaba daawadayaal waxaa xusid mudneed in dhammaan saxaafadda dalka iyo weliba dibadda in ay ka soo qayb galeen xuskan munaasabadda 29 xidhaar si ay warar iyo barnaamijyo arrimaha la xiriira ay u sameeyaan wallahi aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta horumarkan aan arkay iyo sida looga dabaaldegay maalinta qoomiyadaha magaalada Jigjiga aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ma sha Allah ficlan bandhigii ka dhacay halkan waa mid aad iyo aad ummadii ka soo qayb gashay mas'uuliyiinta ay mataqaana ay aad ula dhaceen maadaama qoomiyada kala duwan ay halkan soo bandhigayeen ciyaar dhaqameedkooda bal sidoo aragtaa weligay maan filayn halaha qoomiyada in Itoobiya degan yihiin marka wax oo cajaa'ib oo nala naqday waa sidaan ku sheegay waxaan u mooday qoomiyadaha inay inta ka yareen laakiin waa mid ma sha Allah waxa cajiib ah in ka badan 8 qoomiyadood oo sidaan isku fahansan oo mataqaana hal dawlad ku midaysan marka waa wax aad loogu farxo okay adigoo agaasimihi Universal TV ahaa bananago shaqalahaagina maanta chance ku helnay inaan ku wareysano bal ugu dambeyn maxaad ugu hambalyeynaysaa bulshada ku dhaqan deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dalka Itoobiya horta horumarka oo deegaanka uu gaaray waa horumar la taaban karo waana mataqaana ummadii dana shaahid uga waxaan dhihi lahaa horumarkan halkan ka bilowday oo madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar uu mataqaana hogaaminayo halkan inay ka sii mataqaana horumaraan insha Allah waxaan u rajaynaynaa nabadgelyo waarta iyo mataqaana horumar oo joogta insha Allah wallahi dareenkayga iyo shucuurta maanta ka muuqata guud ahaan shacabka deegaanka Soomaalida ma ahin mid af iyo qalin lagu soo koobi karo waa taariikh la yaab leh wana markii ugu horeysay abid deegaanka Soomaalidu uu barnaamij martigeliyo qoomiyadaha Itoobiya oo dhan xaflad inta la eegna in lagu qabto markii ugu horeysay sidaas darteed maanta shucuurtaydu ma ahin mid la soo koobi karaba marka waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan mahad celinayaa shucuubta iyo qoomiyadaha Itoobiya xafladda nagu soo sharfay ee dhaqanadooda kala duwan la yimid fagaarahan annaga oo tixgelinayna cod iyaguna ay ku yimaadeen mataqaanaa martigelintii aan u sameynay baan u mahad celinayaa waxa kale oo mahad celinayaa roolka ay media-ga deegaankeenna iyo kuwa caalamkuba ay ka qaadanayeen
xuskani sanad guurada sideedaad ee maalinta qowmiyadaha iyo shucuubta Itoobiya oo si toos ah dhammaan warbaahinta dalka iyo ku dibadba uga baxay oo kamid ah wariyaasha ka howlgala website-ka Cakara ayaan waraysanayna bal Mukhtaar ka waran shucuurtada maanta wallahi shucuurteeda maanta lama soo koobi karo waayo waa xafladii ugu weyneyd ee ka qabsoontay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa mahadle markii hore Ilaahay baa mahadle in soo gaarsiiyay munaasabadan qaaliga ee muddada sanadka ah xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida iyo shacabku si wada jira uga soo shaqeynayeen habsami u dhicitaankeeda waxa markaa aanu maanta ku faraxsanahay oo aan shucuubteeda loo soo koobi karin sida qiimaha iyo qaayaha iyo sharafta ku jirto ee u dhacday ee dhammaan mas'uuliyiintii ka socday dawladaha aynu nahay dariska ee ay xafladan u dhacday waxaan u mahadnaqaynaa dhammaanba mas'uuliyiinta xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida sida habsamada looga shaqeynayay muddadii sanadka ahayd shacabweynaha dawladda deegaanka Soomaalida bahda saxaafadda oo aanu kala hadhin sida wanaagsan ee sanadka looga soo shaqeynayay marka maanta ayaanay shucuubteeda lama soo koobi karo waa maalin qaali waa maalin u qaali shacabka dawladda deegaanka Soomaalida waa maalin u qaali xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waa maalin u qaali dhammaan inta jecel xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya marka waxa leeyahay hambaliyo bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waxa la Guulad Xaashi Maxamed waxaan ka mid ahay muwaadiniinta ku nool dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya haddaan maanta shucuubteeda iyo farxaddeeda wax ka sheego wallahi maanta waa maalin aad u qaali ah oo ku qaali ah dadka degan dawladda deegaanka Soomaalida oo dhan iyo Itoobiya iyo geeska Afrikaba علشان maanta munaasabaddan aan joognayno ka qayb qaadanay ma aha oo kaliya munaasabad beer soo joogay ka soo qayb galan ma waxaan oran karaa geeska Afrika cid ka maqan ama adduunka cid ka maqan ma jirto waana munaasabad aan ka qayb galan munaasabadii ugu qiimaha badnayd ugu weyneyd iguna farxadda badnayd waxaan xagan mahad uga dirayaa mahad gaara madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar iyo xukuumaddiisa taas oo sanadka hadda ku jirtay diyaar garowgii ugu faraha badnaa habeen iyo maalinba shaqeynayay horumarka iyo wax walba ka shaqeynayay magacayga waxa la dhahaa Rooble Cabdi Kariin Axmed waxaan kamid ahay muwaadiniinta u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida maanta farxadayda aad lama soo koobi karo waayo waa maalinta koowaad ee lagu qabtay dawladda deegaanka Soomaalida marka maanta waa maalin aad noogu weyn maadaama uu nahay shacabka dawladda deegaanka Soomaalida maanta marka shacabka dawladda deegaanka Soomaalida waxaan qiyaasayaa inay farxadoodu tahay maanta maalin aan la qiyaasi karin ma hadana waxa iska Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida aad baan horta ugu faraxsanahay qurba joog iyo qaran joog buu ahay qaran joogtan ka jecelahay nin qiimaha iyo qaayahan maanta arkaya wuxuu mar walba qiri lahaa inuu qaran joog noqdo waxaan u malaynayaa inaan eriyo kooban lagu soo cabiri karin waxyaabihii meeshan lagu soo bandhigay waxyaabihii qaabka ay u soo abuurmayeen waxaan aad ugu faraxsanahay oo aad iyo aad ugu boorinaynaa oo hambaliyo leenahay saqiir iyo kabiir madax iyo shaqaalaba sida wanaagsan ay uga soo baxeen ay u muujiyeen inay ka go'an tahay iyo kartidooda iyo rabitaankooda iyo sida wanaagsan ay u bandhigeen una macnaha hormoodna ay u tuseen walaalahoodii kale ee Itoobiyaanka ah waxaan aad ugu faraxsanahay oo kale qaabkii ay wax u dhacayeen waxaan aad u jeclaystay dhalinyaradii maharajaanka muujinaysay aad bay u carbisnaayeen waxaan aad u jeclaystay oo kale dhaqamo fara badan oo weliga aadan inaan TV ka aragno mooyee hortaada markay ku ciyaarayaan waxyaabo badan bay ka bedelayaan waxa halkaas ay ku muujiyeen dadka faraha badan leh macnaha kala duwanaanshaha dhaqannimada faraha badan leh iyo afafka badan marka waxaan leeyahay mar labaad baga ayaad ku soo gaadheen dawlad deegaanka waqtigan barwaaqo aad ku soo gaadheen aad soo macnaha ka soo baxdeen aniguna shakhsiyan hal eray u maalee aleelaha baga aad soo gaadheen magacayga waxaa la dhahaa Ayaanla Cali Xuseen waxaan ka yimid waddanka UK baan ka yimid maanta ayaan maaragtay yaan imid magaalada toos baan u soo aaday yani shucuubta aan dareemahayana waxay ahayd waxaan uga imidba UK waxaan uga imid inaan ka soo gaadho xuskan inaan ka soo gaadho xuskani aad buu noogu weyn yahay waa xus taariikhi ah waa xus aan la soo koobi karin waa wax taariikhi ah oo dee weligeedii alle taariikhdan na soo martay ayna ahayn marka sababtaasaan anigana diyaaradihii xalay waan seexan kari waayey saan diyaarad ku heli lahaa yani oon jigjigo ku imaan lahaa oon yani uga dibdhici lahayn aad iyo aad baan ugu farxsanahay inaan ka soo gaadhay
oo aan maaragtay maanta aan ka soo gaadhay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay qowmiyadihii oo dhan oo yacni aan wada daawaday yacni wax dee la soo koobi kara shucuubtannada annaga dareenkannaga maanta waxaan soo koobi karna saan u malaynayo ummadda deegaanka deggan oo dhanna yacni sidaasoo kale wada weeyaan giddigood kuwii dibadda jiray een ka nimidna iyaguna sidaas la eg tiifiyada hor fadhiyaan yacni especially ingiriiskan hadda ogahay waa idin wada salaamahayaa dhammaantiin ingiriiska dadka jooga maaragtay aan daraad ka imid aad iyo aad baan idin salaamahayaa meeshan meel aad ka maqnaan kartaan ma ahayn tv-ga universal aad baan idin salaamahayaa idinkana waxaa la naciim maxamuud eybe waxaan ahay gobolka faafamaan ka socdaa run ahaantii xalfad aad qaali u ah oonan soo koobi karin shucuubtayda isla markaana dhammaan dowlad deegaankana farxad wadaa weeyaan hadda ka hor ma ka qayb gashay xus noocan may anu meel hadda ka hor maana tagin kii ugu horreeyaan gala weeyaan sidoo aragta marka kanu dee tiifiyadan ka daawan jiray kuwa kale too iyaga waxaan kala socon jiray media laakiin kanoo kale weli kama dhicin Itoobiya waa kii ugu weynaa ee maartay ugu soo dhaweynta quruxda badnaad isla markaana dhammaan shucuubta Itoobiyana isla qirtay inuu yahay kii koobaad ee noocan ah Itoobiya ka dhacay waxaana xuskan oo sanadla isla markaana lagu qabto mid kamid ah deegaanada uu ka kooban yahay dalkan Itoobiya ay sanadkan ahayd sanad ay nasiib u heshay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya in lagu qabto xuskan daawadayaal barnaamijkan waxa idin soo diyaariyay halkan ka soo jeedinayay anigoo ah Axmed Kaabe xagga kaamara ama film qadiyaashu waxay ahaayeen Axmed Xuseen Axmed Sidi iyo waliba Axmed Yare xagga habeynta barnaamijkan ee munaasabada 29 daar wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Cali Xanan iyo Cabdi Ciise intaan barnaamijkan qaybtiisa labaad ku kulmi doono xaqiiqan waxaan leeyahay is arag maqal wanaagsan